waxaan rabaa fariin yar oo kooban in halka tiro oo macno weyn xambaarsan taasoo ku saabsan saa ogtiin Puntland waxa ka socda qayb kamid ah gobolka Bari dagaal lagula dagaalamayo kooxaha argagixisada ah oo duulaan qaawan ku soo qaaday magaalada Boosaaso dhalinyarada reer Puntland baa rabaa inaan fariintaydaas aan uga dhigo maaragtay inay gaarto waxaan leeyahay ciidanka Puntland waxay u taagan yihiin har iyo habeen u soo jeedaan waxa weeye waa inay difaacaan nafteena hantideena maalkeena iyo diinteena iyo magaceena sida daraadeed waxa la rabaa inaynu ku dhiirigelino ciidankeena inaynu garab istaagno ficil ahaan niyad ahaan iyo af ahaan intaba inaynu ku dhiir istaagno dadka reer Puntland waxa looga bartay markastoo cadowgu isku dayo inuu khalkhal geliyo jiritaanka Puntland inay dadkooda ay dawladooda garab istaagaan waxa xasuutaan dagaalkii kan ka horeeyay ee Suuji Karmaal iyo Garacad inay shacabku ay ahaayeen lafdhabarta dagaalkan ahaayeen maanta waxa rabaa sidoo kale cadowgu weynaan iyo yaraan ma lahan waxa la rabaa inuu wax ka barto micna ka barto dadka reer Puntland oo la soo aado inay ka duwan tahay dadyoga kale sida daraadeed waxa ugu baaqaya dhalinyarada ay fariintan khaas u tahay aan u diraya aynu ku midowno dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada aynu kula biirno ciidankeena aynu kula midowno ciidankeena furmaha hore ee dagaalka si kasta oo cadowgu uu isku dayo inuu Puntland wax yeeleeyo ma wax yeelayn karo inaga u taagan Puntland waa jiritaanka qof kasta oo reer Puntland waxay ka mid tahay qayb ka mid ah jirkiisa weeye sida daraadeed maanta waa maalinta aynu ciidankeena garab istaagi lahayn marka sida waxaan ka codsanayaa dhalinyarada iyo guud ahaan shacabka inaynu ciidankeena maanta ku garab siino meel kasta oo ay kaga jiraan difaaca guud